tukaraqi waxay noo ka beegan tahay dhanka galbeed waa deegaan ka tirsan gobolka Sool magaalada Laascaano ee xarunta gobolkaasi 50 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan halkana waa meesha magaceedu caan baxay ee la yiraahdo tukaraq waxa ay fariisin u ahayd oo muddo 5 sano ku sugnaa ciidanka Soomaaliland kadib markii dagaal Ramadaan dhacay 2018 ay ku dagaalameen Puntland ayna ku qabsadeen madaxweyne Muuse Biixi oo bishii 9aad sanadkii hore soo booqday halkan taliyaha ciidanka uga warbixinayay waxa uu sheegay 15 kiiloomitir in ciidanku ay sidan u degnaayeen ilaa 30 kiiloomitirna ay dhanka ka jireen laakiin duruufta ayaa ku khasabtay inay dib uga guuraan halkan oo ay muddo 5 sano fadhiyeen kadib kacdoonkii dadka deegaanka ay ku dalbanayeen in Soomaaliland deegaankooda kaga baxdo wala bajikiisi urkayo dhibaatada hadda kugu lidaaran halka la bakaleeyo labaha qolaadeen cadawga u liitay labaha qolaadeen cadawga u liitay leelka soole kula daabanaysidee layd caafimaadiyo calanka dulaysa soole calanka dulaysa leelka soole kula daabanaysidee layd caafimaadiyo calanka dulaysa ciidamada Soomaaliland ay hadda bilaabay inay ka baxaan gobolka Sool markii ugu horeysay ee gobolkaasi yimaadaan waxay ahayd sanadii 1998 bishii 10aad oo ay markii ugu horeysay yimaadeen og waxay tukaraq u jirtaa 150 kiiloomitir waana deegaamada hadda la rabo in ay tagaan sida ay soo jeediyaan waxgaradka deegaanka SSC oo dalbanaya in Soomaaliland ee gobolka Sool iskaga baxdo halkan waa kantaroolkii tukaraq bartana taaganahay ayaa gawaaridu istaagi jirtay mana u dhaafi jirin gaari aan wadan taarikada Soomaaliland laakiin saaka waa wado furan oo cidnaba laba istaajinayo taliskii dhulkan joogay oo ilaa 15 kiiloomitir fadhiyay sida taliska ciidanka Soomaaliland hore u sheegayna wadaday qaadeen goobanibaadiyo sooyalka luulka arigii lahaayo laaskii darwiishko sano hortood baad luqofkii gumaysiga dhiblankaaga adkaatee liil goobanimaadiyo sooyalka luulka carigii lahaayo laaskii darwiishko sano hortood baad luqofkii gumaysiga God.